bismillaahi raxmaani raxiim. duhur wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka raadiyaha wadaag. qodobada duhurnimada maanta aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a madaxweyne qoorqoor oo diiday dalab uga yimid gudoomiyaha baarlamaanka galmudug, al-shabaab oo weerar khasaare geysta ku qaaday ciidamo kenyaana, taliyaha cusub ee ciidanka amisom oo ku baaqay xoojinta dagaalka al-shabaab, ciidamada xoogga oo howlgallo ka bilaabay gobolka galgaduud, khayre iyo qoorqoor oo kulan ku saabsan doorashooyinka yeeshay, booliska waqooyiga macedonia oo xiray tahriibayaal Soomaali ay ku jirto. akhbaaraadka kale ee caalamkana waxaa ugu waaweyn Shiinaha oo soo saaray dayax gacmeed cusub oo lagu kormeerayo badda. wadajirku waa wada noolaasho. wada noolaashuhu waa inaan la kala maarmin. in aan la kala maarminna waa inay wax naga wada dhaxeeyaan. wax kastaba way naga dhaxeeyaan aynu wada lahaano. waana wadaag radio oo kule nala wadaag waqtigaaga. nagula wadaag wanaag iyo waxsan sheeg. wadaag FM radio wadaag waa wehelkaaga iyo waqtigaaga. wadaag FM wadaag radio. wadaag FM. duhur wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel walbo aad joogtaan. waa talaado 22 bisha 9 sanada 2020. markana kusoo dhawaada qodobadii aad soo maqasheen oo faahfaahsan. madaxweynaha maamulka galmudug Axmed Cabdi Kaariyo Qoorqoor ayaa diiday dalab uga yimid gudoomiyaha baarlamaanka ee maamulka galmudug. qadar xuseen axmed ayaa warkan inoo faahfaahinaya. warar lagu kalsoonaan karo oo leelayo ayaa waxay sheegayaan in madaxweynaha maamulka galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor uu diiday dalab ugu yimid gudoomiyaha baarlamaanka maamulkaasi oo ku aadan khilaaf kala dhaxeeyo xildhibaanada baarlamaanka galmudug. gudoomiye Maxamed Nuur Gacal ayaa madaxweyne Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor waxa uu ka codsaday inuu soo fargeliyo khilaaf xooggan oo soo kala dhaxgalay isagii xildhibaanada baarlamaanka galmudug kaasi oo la sheegay in uu gaaray meel aad u adag. ila wareediyo ayaa tilmaamay in madaxweyne Qoorqoor uu sheegay gudoomiyaha baarlamaanka galmudug in arrimaha baarlamaanka ka dhex jiro laga rabo in iyagu ay xalistaan hayeeshee uusan faragelin isaga ku sameyn karin. xildhibaanadii ugu badnaa ayaa ku sugan caasimada galmudug waxaana la sheegayaa inay soo saari doonaan war ku aadan gudoomiye Maxamed Nuur Gacal oo khilaaf xooggan haatan kala dhaxeeyo baarlamaanka galmudug. khilaafkaas oo kala dhaxgalay xildhibaanada iyo gudoomiye Gacal ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor iyo ku-xigeenkiisa Cali Daahir Ciid ay ku sugan yihiin magaalada caasimada ah ee Muqdisho. al-shabaab ayaa lagu soo waramayaa in weerar khasaaro geystay ay ku qaadeen ciidamo Kenyaan sidoo warkan ku sii faahfaahinayo Maxamed Cusmaan Nuur. warar dheeraad ayaa waxaa laga helayaa dagaal xoogan oo dhexmaray ciidamo ka tirsan booliska dowladda Kenya iyo dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab kaasi oo ka dhacay deegaan ka tirsan magaalada Mandera ee gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya. dagaalkan ayaa ka dambeeyay kadib markii al-shabaab ay weerar ku qaadeen kolonyo ay la socdeen ciidamada militariga ah kana tirsan Kenya xilli ay socdaal ku marayeen inta u dhaxaysa Lafey iyo Alunga, sidaasna uu dagaalku ku dhacay. saraakiil ka tirsan booliska Kenya oo la hadlay warbaahinta ayaa u sheegay in dagaalkaasi uu ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo kala gaaray labada dhinac. sargaal boolis ayaa sheegay in al-shabaab ay ka dileen 5 dagaalame halka kuwa kalena ay ka dhaawaceen, sidoo kale dhankooda uu ka geeriyooday hal askari, 2 kalena uu dhaawac culus soo gaaray, isagoo xuseen dhimashada al-shabaab ay sii kordhayso. dadka deegaanka ayaa soo wariyay in ciidamada militariga ah ay weerarka lala eegtay ku sii jeedeen garoonka diyaaradaha, isla markaana dagaalka dhexmaray labada dhinac uu socday muddo ku dhow 1 saac. al-shabaab ayaa dhowr jeer weerar toos iyo qaraxyo miinooyin la eegtay ciidanka dowladda Kenya, waxaana inta badan weeraradaasi ciidamada Kenyaanka ka soo gaara khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyo burbur gawaarida ah. taliyaha cusub ee ciidanka amisom ayaa ku baaqay in la xoojiyo dagaalka lagula jiro al-shabaab. Cabdiwahaab Xuseen Cali ayaa warkan inoogu faahfaahinaya. tafaasiil dheeraad ah ayaa waxay ka soo baxayaan taliyaha ciidanka amisom oo gaaray magaalada Jowhar caasimada maamulka Hirshabelle. taliyaha ciidanka howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya ee amisom ayaa kormeer howleed ku tagay ciidamada amisom qaybta 5aad ee ku sugan magaalada Jowhar, taas oo qayb ka ah booqashadiisa isbarashada ee uu ku marayo dhammaan 6 waaxood ee amisom ay ku sugan yihiin. ciidamada Burundi oo ka hoos shaqeeya amisom ayaa gacanta ku haya qayb
qaybta shanaad xaruntooduna tahay magaalada jowhar halkaas oo xarun u ah dowlad goboleedka hirshabelle oo qiyaastii 90 kilomitir muqdisho u jirta. taliyaha ayaa madaxda ciidamada amisom kala hadlay dardargelinta waxqabadka ciidamadaasi iyo ka qayb qaadashada dagaalka lagula jiro dhaqdhaqaaqa xarakada al-shabaab iyo in lagu soo celiyo wadankan nabadii wacaanka ku ahaa. taliyaha ayaa madaxda ciidamada amisom kala hadlay dardargelinta waxqabadka ciidamadaasi iyo ka qayb qaadashada dadaalka loogu jiro soo celinta nabadda ka hortaga kooxaha hubeysan oo reer galbeedka ay ugu yeeraan argagixisada sida uu hadalka u dhigay taliyaha ciidanka midowga Afrika ee amisom cusub ee jowhar gaaray. wuxuuna taliyaha sidoo kale lamaha ammaanka hirshabelle uu kala hadlay sidii amnigeeda loo xaqiijin lahaa wadada dheer ee isku xirta muqdisho iyo jowhar. uu sheegay in amnigeedu uusan wanaagsaneyn wuxuuna sheegay in ciidamada amisom weeraro jidgal ah lagu sameeyo sidoo kale kuwa dowladda mas'uuliyiin ka tirsan hirshabellena weeraro dhabagal ahna halkaas loogu sameeyo. ciidamada midowga Afrika mas'uulka haatan taliyaha looga dhigay ayaa lamaha amniga hirshabelle sidoo kale waxa uu kala hadlay sida wadadaasi amnigeeda loo xaqiijin lahaa. ciidamada xoogga dalka ayaa howlgallo waxa ay ka bilaabeen gobolka galgaduud ee maamulka galmudug. qadar xuseen axmed ayaa warkan mar kale faahfaahinaya. ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa waxay ku wajahan yihiin deegaanada kala ah la helaya iyo ceelgaras ee gobolka galgaduud ee maamulka galmudug si ay halkaas ugu fuliyaan howlgalo ka dhan ah xarakada al-shabaab. deegaanadan ayaa muddo ku dhawaad 10 sanadood waxaa gacanta ku hayay xarakada al-shabaab iyaga oo shacabka ku nool dhibaato fara badan inta badan ay sheegeen inay kala kulmaan al-shabaab. taliyaha ciidamada xoogga dalka Generaal Oduba Yusuf Raagi oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in al-shabaab ay u geysteen khasaaraad xoogan. waxa uu Oduba Yusuf Raagi uu sidoo kale warbaahinta u sheegay inay dagaal la galeen xarakada al-shabaab ay kaga dileen ilaa iyo 16 dagaalamo oo ka tirsan dagaalyahanada hubeysan ee xarakada al-shabaab. ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ayaa shalay waxa ay la wareegeen deegaanada kala ah Bulacli, Xerfiina, Cadaxaar, Ceel Guureeye iyo Godruwa oo koonfurta kaga beegan magaalada Dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug. si kastaba maalmihii la soo dhaafay ciidamada dowladda oo garab ka helayo kuwa galmudug waxa ay howlgallo qorsheysan ay ka sameeyeen qaybo kamid ah deegaanada uu ka taliyo maamulka galmudug. ra-iisul wasaarihii hore ee dalka Xasan Cali Kheyre iyo madaxweynaha maamulka galmudug Axmed Cabdikaariye Qoorqoor ayaa kulan ku saabsan doorashooyinka yeeshay. maxamed cusmaan nuur ayaa warkan inoogu faahfaahinaya. ra-iisul wasaarihii hore ee xukuumadda federaalk ee Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa kulan gaar ah magaalada Muqdisho kula qaatay madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdikaariye Qoorqoor. kulanka dhexmaray Kheyre iyo madaxweyne Qoorqoor ayaa waxa intuu socday looga arinsaday arrimaha doorashooyinka dalka ee 2020 ilaa 2021 kaalinta ay Galmudug ku leedahay howlaha socda iyo arrimo kale oo ku aadan maamulka. ra-iisul wasaarihii hore ee dalka oo qoraal soo saaray ayuu ku sheegay in kulan uu la qaatay madaxweynaha Galmudug uu ahaa mid miradhala isla markaana ay sidoo kale isla eegeen howlaha u qabsoomay Galmudugta loo dhan yahay. waxaa kulan miradhala la qaatay madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdikaariye Qoorqoor. waxaan ka wada hadalnay arrimaha doorashooyinka iyo kaalinta Galmudug sidoo kale waxaan isla eegnay howlaha u qabsoomay Galmudugta loo dhan yahay iyo waxyaabaha hor yaala maamulkiisa ayuu yiri Xasan Cali Kheyre. tan iyo markii uu shaaciyay ra-iisul wasaarihii hore ee xukuumadda Kheyre inuu yahay musharax madaxweynaha xilka Soomaaliya ayaa waxa uu Muqdisho ka bilaabay kulamo siyaasadeed isagoo la kulmay gudoomiyihii hore ee golaha shacabka Jawaari iyo gudoomiyaha aqalka sare Cabdixaanshe Cabdullaahi. booliska waqooyiga Macedonia ayaa lagu soo waramayaa inay xireen tahriibayaal Soomaali ay ku jirto. mar kale Cabdiwahaab Xuseen Cali ha inoo eega warkan. tan iyo markay burburtay dowladii dhexe ee Soomaaliya oo madaxweynaha ka ahaa Allahu raxmaday Maxamed Siyaad Barre muwaadiniinta Soomaaliyeed waxay baxsad u ahaayeen tahriib ayagoo qaarkoodna lagu xirxiraya xabsiyada ku yaala wadamada ay u baxsanayaan qaarna lagu xiraya ka hor inta aysan gaarin meesha uu yoolkooda ahaa. xilligan booliska waqooyiga Macedonia waxay xireen tahriibayaal Soomaali ah. booliska qaabilsan la socodka dhaqdhaqaaqa waqooyiga Macedonia ayaa sheegay in ay
dileen 61 muhaajiriin ah iyo 5 ruux oo loo badinayo in ay yihiin muqallisiintii dadka tahriibinayay oo ay gacanta ku dhigeen. howlgalka baarista ayaa dhacay kadib markii xog lagu kalsoon yahay ay gaartay ciidamada sida gaarka u qaabilsan howshan ayna ku dhaqaaqeen maadaama lagu amray in ay fuliyaan howlgalka lagu qabanayo. 3 dal ay u badan yihiin dhalashada dadkan la qabtay waxaana ay kala yihiin Afghanistan, Syria iyo Soomaaliya. 3dani wadan oo colaado iyo dhibaatooyin sukeeye ay ragaadiyeen ayaa dadkani ku qasabtay in ay baxsad ka noqdaan dalkooda hooyo. wargeyska Washington Post ee ka soo baxa dalka Mareykanka lagana leeyahay Mareykanka ayaa xogtan gunta u galay daabacayna in ay ku jiraan muwaadiniin kala haysta dhalashooyinka Bangladesh iyo Pakistan oo ka xasiloon 3dani dal. ciidanka booliska ayaa horey gacanta uga dhigay 28 ruux oo lagu hayay guri ku yaala waqooyiga Macedonia. dhalashadoodana waxaa lagu sheegay Bangladesh, Pakistan iyo dalka Afghanistan. dadkan loo qabtay waxaa ku jira darawal doonaya in uu gaari u saaro si uu ugu gudbiyo xadka Serbia si ay u sii wataan safarka ay ku doonayeen in ay ku tagaan wadamada reer Yurub iyagoo ka gudbayay jasiiradaha yaryar. taariibayaashan lagu qabtay waqooyiga Macedonia ayaa ka gudbay xadka Greek uu la wadaago wadankan. xukuumadan ayaa adkaysay xadka ay la wadaagto dhigeeda Athens maadaama tahriibayaal badan ay ku xayiran yihiin halkaas. halka aad warkaasi duhur kala socotaana dhegeystayaal waa reediyo wadaag 96.5 megahertz. markana akhbaaraadkii kale ee caalamka. dowladda Shiinaha ayaa soo saartay dayax-gacmeed cusub oo lagu kormeerayo badda. Shiinaha ayaa si guul leh ku soo saaray dayax-gacmeed cusub oo lagu kormeerayo badda sida lagu sheegay warbixin cusub oo ka soo baxday waaxda dayax-gacmeedyada. gantaal dheer oo ah Mach 4B oo watay dayax-gacmeedka HY2C ayaa laga soo qaaday 1:40 waqtiga Beijing markii laga bilaabay waqooyiga galbeed ee Shiinaha ee Shuan Satellite Launch Center. dayax-gacmeedka HY2C oo loogu magac daray ereyga Shiinaha ee Hayanga ee badweynta loona bixiyay HY soo gaabintaan ilaahdii waa dayax-gacmeedkii saddexaad ee indhaynta badda iyo dayax-gacmeedkii labaad ee kaabayaasha hawada sare si loo bixiyo adeegyo kormeer ku socda badda. waxaa la midoobi doona HY2B oo la bilaabay Oktoobar 2013 iyo HY2D oo xigta si loo sameeyo lakabyada shabakad aan idhaahdee lagu talagalay la socodka jawiga badda taasoo uu saamaxaysa Shiinaha in ay fuliso 24 iyo 7 dhammaan cimilada sare ee la socoshada xogta badda, dhererka dusha sare ee badda, heerkulka iyo dabayaaqada ama dabaylaha iyo dhererka hirarka dalkaasi. dayax-gacmeedka HY2C iyo gantaalka xambaarsan Longitude Mach 4B waxaa soo saaray shirkadda sayniska iyo teknolojiyadda ee Aerospace ee Shiinaha. warkii duhur oo aad kala socoteen radio wadaag waa inaga intaa dhegeystayaal. waxaa inaga xasuusina ciddii warkani warar wixii caalamka kusoo siyaada ay seegaanba waxay si sahlan uga raadin kartaa barteena internetka ee radiowadaag.com.